dugsiyada al irshaad schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووالديني أرضي وسلامتين وعبد القادر أوديجيا ساينس وجريد 3 page 50 to 51. maalintii hore waxaanu bilownay chapter 8 properties of materials kii baa maanta inoo sii soconaya. maanta waxaan dhiganaynaa laba ciwaano waaweyn. waxaan dhiganaynaa states of materials and how heating and cooling affects different kinds of materials. waxaan dhiganaynaa maanta noocyada ama xaaladaha ay ku kala sugan yihiin materialska ama walxaha maalin kasta aynu isticmaalno ama aynu aragno ee adduunka yaala. inta xaaladood ay ku kala sugan yihiin iyo waxaanu dhiganaynaa xaaladaha ay ku kala sugan yihiin markaynu marna kuleelino marna aynu qaboojino sida ay uga jawaabayaan noocyada walxo ama xaaladaha ay ku kala sugan yihiin walxo. arday materials are divided waxa loo qaybiyaa materialska into solids adke, liquids dareere, and gases iyo hawo. materialska ama walxaha adduunka yaala waxa loo qaybinayaa saddex nooc. walaxdii ama wax weeyaan walax adka ah, ama waa walax dareere ah, ama waa walax hawo ah. maxaa tusaalayaal u ah walxaha adag? waxa tusaale waa dhagaxaanta iyo biraha, stones and metals. walxaha dareeraha ana waxa tusaale u ah water and milk. walxaha hawada ana waxa tusaale u ah hawadeena caadiga aan naqaano iyo fumeska. haddaba arday saddexda nooc ama saddexda xaaladood ee ay ku kala sugnaan karaan walxaha aynu maalin kasta aragno ama aynu isticmaalno, saddexda xaaladood ay ku kala sugan yihiin ayaynu marna kuleelinaynaa marna aynu qaboojinaynaa. dabeetana waxaan eegaynaa sida ay uga jawaabaan walxahaasi ama sida ay isu bedelaan. okay, marka koobaad waxaan soo qaadanaynaa solidska oo ka koobaada. waxaan soo qaadanaynaa tusaalaha koobaad oo ah walxaha adkaha ah. when solids are heated they change into liquids. walxaha adkaha ah ama adag, materialska adag, marka la kulayliyo waxay isku bedelaan dareere isku bedelaan. maxaa tusaale u arday? example waxa tusaale u ah ice amaba barafka. barafku waa adke laakiin haddaynu kulaylino ama aynu dab aynu saarno wuxuu noqonayaa dareero isku bedelaya. haddii aynu haddaba ka waran wixii adkaa aynu qaboojino, waxaanu nidhi marka aynu kulaylino walaxda adag waxay isku bedeshaa dareere. walaxdii adkayd haddii aynu bal ka warrama aynu qaboojino arday. cooling does not affect solid materials. walaxda adkaha ah haddii la qaboojiyo isma bedesho. haddii laakiin aynu kulaylino liquid bay isku bedelaysaa. haddaynu qaboojinana isma bedelayso. waxaa tusaale aynu soo qaadanay tii markii hore baynu soo qaadanay ice barafka haddii arday la qaboojiyo ama thalaajad ama refrigerator ku rido barafku isbedeli maayo, sidiisaasun buu ahaanaya. stateka labaad aynu soo qaadananaa ama xaaladda labaad ay ku sugnaan karaan materialsku aynu ka hadli doonaa waxa weeyaan waa liquidska arday marka koowaad waynu kuleelinaynaa marka labaadna waynu qaboojinaynaa. dabeetana waxaynu eegaynaa say isku bedelaan. when liquids are heated marka la kulayliyo waxyaabaha dareeraha ah they change into gases waxay isu bedelaan hawo. waxaan kan qaws geliyey steam oo ah uumi. iminka waxaan tusaale soo qaatay water ama biyaha arday haddii dab la saaro ama la kulayliyo iyagu waa liquid, laakiin haddii aynu kulaylino waxay isku bedelayaan
waxay isku bedelayaan steam oo ah uumi ay isku bedelayaan oo gas bay noqonayaan hawo noqonayaan haddaba haddii aynu markii ay liquidkii aynu kulaylinay haddii hawo isku bedeshay markaynu qaboojino say noqonaysaa cooling also affects liquids qaboojintu sidoo kale waxay saamaysaa liquidska ama waxyaabaha dareeraha and changes waxaana u bedeshaa and changes them waxaana u bedeshaa into solids adke maxaa tusaale u ah water halkan waxaa tusaale aan idinku soo qaatay biyaha biyuhu ardayay haddii aynu qaboojino xaaladoodii hore ee dareeranimada ahayd xaaladoodii hore ee dareeraha ay ahaayeen way iska bedelayaan waxaana isku bedelayaan xaalad adka ah oo waxay isku bedelayaan imka biyihii ice haddii la qaboojiyo waxay isku bedelayaan barafka waa lagu dakhri karaa laakiin wuxuu ahaa markii hore dareer u ahaa liquid buu ahaa liquidkii markii la qaboojiyey baraf buu noqday dabeetana solid buu isku bedelay barafku waa solid sooma ta saddexaadan dhigana ardayda waxa weeyaan waa gases stateka saddexaad aynu ka hadlanayo walxuu ku sugnaan karaan waa gases marka gaseska marka koobaad waynu qaboojinaynaa waxaanu eegnaa wax say isku bedelaan marka labaadna waynu kuleylaynaynaa haddaba when gases are cooled marka la qaboojiyo gaseska they change into liquids waxay isku bedelaan dareeray isku bedelaan waxa tusaale idinku filan haddii marka uu shaahu karayo oo kale afkiisa waxa ka soo baxa kaldhiga waxa ka soo baxa uumi yar uumiga haddii aad wax u dhigto wuu qaboobayaa dabeetana wuxuu isku bedelayaa dareer isku bedelayaa biyo isku bedelayaa waxa kale oo aad arki kartaa marka ay distidu dabka saaran tahay haddii aad furkeega soo qaado uumigii ku ururay furku sida meesha dabka saaran oo kale uma kulula u qaboobay dabeetana waxaad arki kartaa iyadoo uumigii uu isku bedelay biyo dabeetana uu ka da'ayo daboolkii distida kaasi waxa weeyaan markaynu qaboojinay gaasiska markaad qaboojiso ama wixii uumi ah markaad qaboojiso wuxuu isku bedelayaa liquid heating does not change bal haddaba aynu kuleylino haddaba wixii uumiga ahaa haddii aynu kuleylino heating does not change gases into another form of materials kuleylintu uma bedesho waxyaabaha uumiga ah ama hawada ah nooc kale oo materiala ama nooc kale oo walax kale kama dhigto waa uumi dareerna ka dhigi mayso adkana ka dhigi mayso sideedaasay ahaanaysaa laakiin solidska iyo liquidska labadaba kuleylintu way bedeshaa oo solidski markaynu kuleylino waxay noqdeen liquid bay noqdeen liquidski markaynu kuleylinayna waxay noqdeen gas intaasi waxa weeyaan sida ay uga jawaabayeen noocyada kala duwan ee walxuhu marka la kuleyliyo iyo marka la qaboojiyo si ay uga jawaabayeen waxaan soo samayn doonaa summary yar oo jadwal yar baan ku soo qoray oo aan ku soo koobay wixii aynu ka hadlanay imka materialskii ayaan ku soo taxay waa solids liquids iyo gaseski saddexdii nooc ay u jireen marna waynu kuleylinayna marna waynu qaboojinaynaa haddaba solidska haddii aynu kuleylino on heating ku samayno waxay isku bedelayaan baynu liquidska waxaan jeedaa solidska haddii aynu cooling ku samaynana isma bedelayaan solidka haddaad qaboojiso isma bedelayo solidka haddaad kuleyliso liquid buu noqonayaa liquidskana saasi leeg bal aan ku samayno haddii liquidska aad kuleyliso gas bay noqonayaan liquidska haddaad qaboojisana solid bay noqonayaan oo inaga tusaalayaashii xaggaa kusoo aragnay gaasiska ugu dambeeya gaasiska haddaad kuleyliso ka waran wixii hawa haddaad kuleyliso isma bedelayo gaasiska laakiin ama wixii hawa sida uumiga oo kale haddaad qaboojiso wuu isbedelaya wuxuuna noqonayaa liquid buu noqonayaa intaasuu ku eegaya maanta cashirkeeni ardayay aad baad mahadsantihiin dugsiyada al irshaad schools